بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سوماليد ميل جوجتان بإله سبحانه وتعالى دكوا ما يلو عدي دبنبك الله كقادو عدي دن لا الله وفي انت بان الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انت دمتي الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستو أنا الله نوغا دبا نحريستو دالكا دينتا دادك إيا دولد نبدبا إلهي سبحانه وتعالى هنو بدباديو waxaan ka hadlayaa maanta laba qodob. Qodobka koowaad waa Israelization ama Soomaaliya oo la rabo in loo bedelo qayb ka mid ah Israel, meel ay leedahay ay maamulato ay ka duusho iyo dadka involvedka ku ah kelmadan ka oranaya. Qodobka labaad waa buuqa iyo qaylada ka yeeraysa Puntland, iyadana kelmad baa ka oranaya. aan ku hormar Puntland ma maqli jirteen baroorta orgiga ka weyn جمعالي سنة كبدن بمشار قادني 1 year بمشار كقادني يا مقدشو، لكن قيلوا هذا برابط مركز يوحي جران. أنا إذن كده بقيني حقت الدبتة أبني دين بيبيا كو دب جروبة وأي هو قامين يسو سعديو قدومية برلمان كسعديو يوسير ك duulista hawada maxamed faarax ayaa waxay isku dubariteen qabaa'il aan ahayn maxamuud Saleemaan oo ka kooban Carab Saalax, Leelkase, qayb ka mid ah Ali Saleemaan, Yibro. waxay yiraahdeen waxaan haysanaa 16 xildhibaan soo far oo ka madax bannaan dani. hadday noqoto doorasho qof iyo cod ah waxaa lagu qabanayaa gaalkacyo waliba qayb ka mid ah oo garsoor baa lagu qabanayaa galdoga baa lagu qabanayaa meelahaas lagu qabanayaa bari waa lagu qabanayaa. waad aragteen niman odayaal oo hadlaya oo iyaguna arintaa abaabulaya. marka 16 xildhibaan oo uu rabay inuu dambiil ku soo rito ayaa dani gacantiisa ka saaraynaa oo anagu aan xamar la aadayna. arintaasi waxay ku noqotay dani dabar jab ya naasabeel wixii la oran jiray. markaasuu qaadi kari waay, meel uu dhaqaaqo garan waay, cid uu eedda saaruu raadinaya. jimcaalu kala duldhacay. jimcaale anaa la hadlay, waxaan warma dagaal baa wadaa. wuxuu yidhi maxay tahay mushkilada meesha ka jirta? wuxuu yidhi anigu sanad dani mushaharkii waa noo diiday. markuu noo diiday xamar baan ka doonanay, waa noo bilaabeen. dowladda dhexe ayaa noo bilowday. dowladda dhexe ciidamo kale oo tiro badan bay lacag siisaa, dani bay lacag siisaa. 3 bilood oo kasta dani dhowr milyan oo dollar bay siisaa. haddii dowladda dhexe lacagteedu sun tahay, tan dani maxay sun u noqon weyday oo tan jimcaale sun ka dhigay iyo ciidankiisa? jimcaale wuxuu ii sheegay inuusan xamar u aadin dagaal. wuxuu kaloo ii sheegay haba yaraatay inaysan jirin xil loo magacaabay oo ah taliye qaybeed ee ay tahay gabi ahaanba wax bayaan abuura. dowladda dhexena bayjajkeeda meel ka midana aysan ku soo saarin. and by the way, xasan sheekh maxamuud ciduu magacaabi karo lama arko, waa madaxweynihii hore. wax xil oo haya lama arko, waa madaxweyne xil gaarsiin. qayb uu Puntland u magacaabay iska dhaafe xamar buusan u magacaabi karin. cid alla ciduu wuxuu magacaabana waa illegal, ciddii uu xil ka qaadana waa illegal, waa xadgudub. marka wax jiraba ma waxaa soo haray mushaharka awalba waa qaadanaynay. maxaa hadda buuqa keenay? buuqan waxaa keenay dani baa is arkay isagoo faramadow oo ka faramadow intuu albaabadiisii xirtay oo dadkii gaajo ku laayay oo mushaaharadii joojiyey oo wiilka khasnajiga u ah wasiirka maaliyadda magaca haysta laakiin asal ahaan khasnaji ah, shaqadiisu waa khasnaji. ninkaasi wuxuu aaminsan yahay shilin kasta oo baad lagaga qaado dadka in uu xaq u leeyahay, iskana leeyahay dani. marka wixii oo bac uu ku wado isaga iyo kan bangiguba wixii bac ay ku wadaan bay u geeyaan, boorsa ugu geeyaan madow meeshiisa u dhiga isagaas kale. dadkii marka ay faramarnaan iyo gaajo iyo isku waraysteen inaysan dowladda wax ku lahayn, albaabadiisuna ay xiran yihiin, oosan cidna la hadlin, isaga iyo
xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo walaalihiis iyo iyada walaalaheed iyo ilma adeertiis iyo ilma adeertood iyo ilma abtiyaashood iyo family ay ku soo aruurtay oo mashaariicdii iyagu qaateen oo wax walba iyagu afka iska mariyeen oo ay dadka lacagta canshuurta ay ka qaadayaan ay tahay baad ay ka qaadayaan ayaa dad badani ka danaystay oo waxaa la raadsaday meelo kale waxaa ka mid ah kuwa hadda aan ka hadlayo oo baar aaday xamar ogaada Sacdiyo iyo Maxamed Faarax labadaba isagaa keenay dadkii uu isagu soo magacaabay oo soo qortay bay ahaayeen xasanna waa ninkii uu keenay waana kan uu lacagta ka helo 3 bilood oo kasta xasan maaha nin kale waa kan uu isagu keenay doortay xildhibaanadiisii uu geeyey isagu uu taageeray madaxweynaha ka dhigay kadibna ay xilal isku qabsadeen xilalka hadduu heli lahaana xasan wuxuu ahaan lahaa xasan shaxshax laakiin hadda waa xasan jinni iyo belo iyo yahoo waxaas caruuraha loola yimaada qodobkaas qodob ka fiican oo si fiican ah baan idin bayaaninaya caaw si fiican ii dhegeysta reer Puntland oo dhegeysta Puntland nabadeedu dawladda Puntland way ka horeysaa Puntland 91 ilaa hadda nabad bay ahay Puntland dawladda ahna waxaa la dhisay 1998 maxay tahay nabaddu marka nabaddu waa dadka haddii iyaga lagu soo duulana waa iskaalmaystaan oo waa isugu tagaan oo waa iska dhacshaan hadday dhexdooda wax ka dhacaanna waa isqabsadaan oo waa isku hagoogtaan oo waa damiyaan nabadda lagu sheegayaa taa weeye mid dawlad hadda dhisan oo deni uu maamulo ay keentay ama kuwa ka horreeya ay keeneen ma aha hadday ahaan lahaydna wallaan looba arkeen meelay martay ee nabaddu waa nabad meesha taal horey u taallay insha Allahuna ooli doonta haddii systemku burburo Puntland baa la burburinayaa baa lagu celceliyaa ciyaalo wararka u dhiibaa meelaha ka qiilinaya maxaa la burburinayaa waxa burburaya sibxay qabsada Puntland waa bakhaar nin u furan khasnajina u joogo wasaaradda maaliyadda iyo bankiga canshuurtana kuwa waalan oo jinniya qaba oo isaga ku khafiifay ama uu isagu samaystay oo meeyarra la yiraahdo kan garowga ka mid yahay ay lacagta dadka xoog uga soo qaadaan albaabadana ay kala baxaan hadday bixin waayaan lacagta iyada ah oo boorsooyin lagu wado baa isaga loo geeyaa qaaru shirkada ku furto Zambia kaga maalgashado Dubai kaga meel kasta kaga maalgashaday Nairobi dan kaga maalgashado isagii ciyaaladiisu ay ku qooqaan oo ay ku tuntaan mawjada buu ka dhigtaa $1 milyan buu qaataa markuu Dubai aadayo 2 bilood buu maqnaadaa wuxuu ku maqan yahay ciidamada taqaan wuxuu keenay ciidamada taqaan wuxuu doonay ciidamada taqaan waa bakhaar ninka u furan bakhaar weeye marka systemka inoo dhisanay dawlad maahee waa system bakhaar ah oo hadba nin Maxamuud Saleebaani inta yimaado oo 5 sano ka qadeeyo markii uu ka dhargana mid kale uu ku wareejiyo haday dunto marka dadka kale oo dhan waxba ka dhuumayaan waxa ka dhuumayaan waa Maxamuud Saleebaan siyaasi ah oo iyaguna dhowr nin ah oo waayay khasnadii iyo magaranaysa lacagtii iyo bakhaarkii u furnaa waayay bakhaayadu nimankaas ay u shidantahay cid kalena looma ogola marba nin iyaga baa imaanaya intuu heli karo ku qaadanaya daaris waxa u dhisan dawlad lama yiraahdo waxaas dawlad maxaa la yiraahdaa dawlad waa service khidmad dadku caafimaad bay helaan waxay helaan biyo nadiif oo macaan oo raqiis ama free ah waxay helaan koronto waxay helaan waxbarasho waxay helaan yaani sharaftooda iyo dignitygooda in la ilaaliyo waxay helaan cadaalad iyo dawlad loo siman yahay maxkamadaheeda waxay helaan waxaas service-kaas la yiraahdaa dawlad kama jirto Soomaaliya oo dhan bay ka jirin Puntland iska badaa warkeeda maxaa u maalinaysaa nin maalin walba Maxamuud Saleebaana why what's the point dadka kale oo aan Maxamuud Saleebaan ka ahayn qaylada ma daayaan mana tashadaan buuqna ma daayanta waxay leeyihiin waana Maxamuud Saleebaan idinka u gura lacagta boosaasay idinka uga ururiya ilaa gaalkacyo idinka lacagta u geeya idinkoo baca ku wada iyo boorsooyin marka systemka la idinka sheekeynay dawladda Puntland baa la dubinaya ninka qaylinaya wuxuu la qaylinaya bakhaarkayga la iga xiraya saa u dhaho runtana ha sheego inta la qadayso oo magaranaysa uu xoogaaga u turtuuro oo wasiirka ku sheega ahna
waxay qaataan bariiskoodaasi ku nool anigu waa ka shaqaystaa waxaygaan cunaa buu ku leeyahay xaqiiqada dhabta ah waa bakhaar reerka u furan oo marba nin yimaado oo hagbad u ah oo marba mid laga qaado mid kala la keeno qaar baa waxay ku leeyihiin tarihiiba war tarihii midinkaaba bedelay baa tarihii reerkii unbaa weli haysta maxamuud saleebaan unbaa haysta yaa bedesheen dani baa ka dhacay isla dani baa ku noqday dani yuu yahay masamadu ka yimi cid kala waa maxamuud saleebaan tara hagbadaba islaamaha ku jira markii ay hagbad wada galaan in adeerow adeerayaal dhibba ay haystee aniga hala ii hormariyo waa yiraahdaan oo waa la kala hormarsadaa kuwa hadda la dhaafiyena hadhow bay ku soo noqonayaan idinka weligii waxa idinku soo wareegayo saa idinku meeraysanaya hal reera codka ugu badan oo reerka doortaana waa idinka nan maxamuud saleebaanka ah marka idinka wax dhintay oo aan noolayn ee qayladana daaya hashu iyada geela cunto cabaada ma maqli jirteen idinka cod ka baxshay idinka siinaya 60 iyo 6 cod 12 bay ku leeyihiin xataa hal qof ma dooran karaan waxba ma soo saari karaan hal mar baa saa loo dulmari karaa marka maxaa tala adeer systemka hadduu burburo adiga kaa burburi mayee take it easy that's number 1 qodobka labaad waxaa socota Israelization Soomaaliya la rabo in Israel gacanta loo geliyo ninkan Puntland jooga intii cirra mari jiray buu maraya akhriya idinku ciyaalkooda waxa ay leeyihiin Somaliland iyo Puntland waa walaalo ha Somaliland hal itiraafo Israel sax weeyeen kuwa qowqaayiinta isaga u shaqeeya dhageysta ama akhriya hadalkooda saasi waxay wada niikinayaan Somaliland waa kuwii keenay calankii Somaliland in lagaga dabaaldego 18 May garowe yahay kuwii keenay way lacagta ku baxshay oo dani soo diray kharashkana uu isagu siiyo mushaharkana ka qaata maxaa la wadaa waxaa loo socdaa dawladda dhexe waa balo dawladda dhexe waa hoogiyaba dawladda dhexe waa jin dawladda dhexe waa cadow waa hawiye baa lagu leeyahay hawiyaa soo duulay xasan waa hawiye xasan weligiis hawiyaha markuu lacagta ka qaadanayo waa hawiye markuu isagu raba inuu ku awrkacsadana waa hawiye ma hawiye ka fiican xasan ma marbuusan hawiye ahayn markuu lacagta ku siinayna waa xasan macaan oo shaxshaxo xasan markaa dooranaysa xasan shaxshaxo buu ahaa markaad xilka siinayso ra'iisul wasaaraha ka bariyeysay xasan fiican uu ahaa xasan goormuu hawiye xun noqday xasan waa hawiyihiisii saas weliga inuu wax boobayo iyo waa lagu yaqaanay wax cusub uu keenay lama arko iimaan la'aanta ama darganimadaas ilaa qabuuraha iyo masaajidada iyo madrasooyin ka baxsan waayaan waa lagu yaqaanay laakiin dani markuu idin akhriyo inaad kardhataan oo aad kor u kacdo reer Puntland goorma dad noqonaysaan oo caruurnimada ka baxaysaan goorma maaweelada dhaafaysaan runta goormaad wajahaysaan waxaa la idin wadaa Israa'iil oo la keeno yoocada iyo qow maxay tahay macnaheedu dhulbaante iyo warsageli in la tirtiro Somalilandna lagu daro iyagoo gun ah oo la gumeeyay oo la baabashay Israa'iil ciidan bay keentay maxay ka dhaxleen kuwii raacay Iran idin ka waramaya waa xog dhaba madaxtooyada banaankeeda kursi dhigan jiray dadka u tagi jiray waa la qaabili jiray dadka hore buu qaabili jiray qof ma arki karo baqdin iyo balbala la u tuuray maxaa yeelay doon dagayso raacay Israa'iil Mareykankii baa soo tufay Mareykan baa tufay cid kalena awalba uma harsanayn cid lay taagan tahay hadda waxay raadinaysaa waxa laga sheegay Netanyahu waa dagaalamayna oo muxuu leeyahay macnaha bahalkan la yiraahdo nuclear kan bantuuraya oo dadka la dhacaya hadalkiisa waa maqlayseen Somaliland waa Israa'iisha Afrika afkiisa ka maqasheen أنا إسكالي إسرائيل وي إماراتنا وإسرائيل دني إمارات باله إماراتنا وإسرائيل إمارات وذوقتين إن أي فدحودي أو دونالد ترامب كعدي إن يوير ليسي وديارته دقيني إيران وأنا صوبت أي بعض لبعتني يكون بليون أو دولار أو بحين يعني أسين يعني إيران سجس الصبيان نتنياهو أنتو صوب حيبي وحاسدين يعني قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر نعيب كيف كبت قف مسلم أسوأ أحسان وما هيو حبت بوهيا
meeluu joogaba kan uu ku shaqaysanayo ma kala jecla ciraas ma kala jecla hadeer ku shaqaysanaya waa adeegsanaya waa isticmaalaya barina saas u tuuraya sidii goloof uu ku shaqaystay oo wasakhoobay buusaa isaga tuuraya mawjeeda muxuu ku sameeyay imaaraad wuxuu yiri Abu Dhabi baan fadhiyay markii Netanyahu markii Tel Aviv la soo duqeynay hadaan ahay Netanyahu halkaasan ka weerarayay Iran halkaasan ka maamulayay dagaalka wuxuu rabaa marka iyagana in la weeraro la baabasho dhulka la jaro ma kala jecla waa faa'iido bardo faa'iido weeye kii ka dhintaaba labada dhinacba isku dar weeye mawjeeda dani marka waxa uu idin wada waa ciro hada muxuu joogaa madaxtooyadii hoosteeda waxa laga qodayaa bankar hada uu soo laabtay waad maqasheen xuutiyiintii waxay dhaheen hadaan duqeynayna bankar baa loo qodayaa meel dhulka hoosteeda la qodayaa waxa lagu dhisayaa bir uu galo oo madaafiicda ka galo intiina kala xagee galeysaan kuwina rablaynaya xagee galeysaan ii sheeg meesha galeysaan waxa la wadaa ciidan xoogaayo ay soo tababareen ba isaga waardiyeeyay hadda oo ka ilaaliya kuwa asxaabtiisii qaraabadiisii reerkiisii ka ilaaliya xataa haweentiisa looga baqa cid kale iska dhaaf halkaas uu maraya baqdin baa loo tuuray wadnihii baa khalalay wuxuuna u dhimanayaa cuqdad iyo naxdin iyo baqdin buu dhimanaya maxaa yeelay doon degaysa niman musiibo ah oo adduunku sanka ka qabsaday buu daba orday markii la tufay goor xilluu raacay waxaa soo xasuustay ninkii la oran jiray allah u naxariistee xirsi magan baa wuxuu yiri ina xaaji aadan maxamed xaaji aadan buu maagayo isku ragahayeen maxamed xaaji aadan hadba doontii degayso raaca doon buu ka boodaya mid kale fuulay waa degaysa sidii kale ciro ku dhacday ciro doon degayso raacay allow maxaa nagu watay allow maxaa noo kaagay Israa'iilay bay ka taagantahay United Nations waxay soo saareen taqriirkii ugu dambeeyay in lagu cadeeyay oo lagu magacaabay Israa'iil inay tahay state black listed ah oo maxay ku yihiin waxay isticmaalaan laba waxyaabood caruurta waa beegsadaan kasbay u beegsadaan labo waxay isticmaalaan fuulid iyo galmo ayay u isticmaalaan as a torture tool qalab macnaha tacdiibka ama dadka marka la ciqaabayo ciqaabta waxa kamida inay dadka fuulaan rag iyo dumar ba ay fuulaan iyo caruurba ba kamida marka black listed waa state lagu calaamadiyo lagu astay state sumad looga dhigay ama wadan sumad looga dhigay inay dadka kufsadaan ay ka adkaadaan iyo maxaabiista ay qabtaan waxaasaad soo kaxaysanaysaa waa wasakhdii adduunka wey baad soo kaxaysateen reer Puntland halkaasaa laydiin wadaa ama garta ama ha garanina ama waxuun ka dhaha ama ha ka dhihinina that is where you going to cira iisoo haray ciro Netanyahu wuxuu ku yiri waadna aqoonsatay waxaad Jerusalem u aqoonsatay inay tahay the ancient city oo ay leeyihiin ancient Jewish waxaad waa magaaladii qadiimka ahayd oo ay lahaayeen yahuudu